ma ogtahay in meel ka mid ah adduunka geela loo sameeyo timo jaris farshaxan leh sida dadkoo kale qaar ka mid ah geela waxaa jidhkooda lagu sameeyaa nashqado qurux badan oo qaata saacado badan si loo dhammaystiro dalka Pakistan gaar ahaan gobolada saxaraha ah waxaa jira dhaqan gaar ah oo loo yaqaano camel barbering ama qurxinta timaha geela farsamayaqaano khibrad leh ayaa isticmaala maqas iyo qalabka timaha lagu jaro si ay ugu sameeyaan jidhka geela qaabab iyo nashqado farshaxan leh sida xidigo ubaxyo iyo qaabab qurux badan reer xamarka ayaa waxay ku mahmahaan geel indha kuul muxuu ka kasaa mahmaadaasi waxaan isleeyahay halkan ayay kasoo jeedaa mararka qaarkood nashqadaha waxaa lagu midabeeyaa xinaha si ay u noqdaan kuwa si fiican u muuqda hal nashqad oo keliya waxay qaadan kartaa 4 ilaa 7 saacadood si loo dhammaystiro geela la qurxiyey badanaa waxaa lagu soo bandhigaa suuqyada xoolaha iyo tartamada quruxda geela gaar ahaan ka hor ciidda al-adxa geela nashqadaha ugu quruxda badan leh wuxuu marmarka qaar ka qiimo badan yahay ama ka qiimo sareeya kan caadiga ah qurxinta geela maaha oo keliya ganacsi waa dhaqan soo jireen ah oo ay jiilba jiil u sii gudbinayeen xoolo dhaqatada farshaxanada waxay muujinayaan hal abuur iyo xidhiidh ka dhexeeya dadka iyo geela iyo nolosha saxaraha geelan aad iyo aad baa loo nafaqeeyaa waa la fadhiisiyaa socodka laga ilaaliyaa cunto badan baa la siiyaa miisaankiisu aad iyo aad buu culus yahay xataa waxaa loo marinayaa indhakuul xinne timaha loo feedhayaa cimrigaaga oo dheeraadaan geel dhalayo ku tusa soomaalidu waxay ku mahmahdaa akhroonimaan geel lahayn lama ammaanayn